بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أول أقسن داودي الكسر داود القناة يوتيوب كأصلح أبو سافي للصعدة خيب طلبات أو أها خسدي نبي يحيى عليه السلام ولا له فضلا وليس أمرا فيلمك دحكوا خواننا هني موتيننا فيلمك داود بلوغ إلا يرماتك أدينك أيادب أوغانتون تاني قصة إن شاء الله. maalin maalmaha ka mid ah carruurta ayagoo ciyaarayaan waxay u imaadeen nabi yaxya calayhi salaam. waxay u dhaheen yaxya kaalina la ciyaar. yaxya waxa uu dhahay carruurtii anaga ilaahay manoo abuurin wakhtigeeni maalaa yacni inaan ku dhammayno iyo cayaar ee manina cayaari kariye wakhtigeyga marabi inaan ku baabi'iyo wax oo maalaa yacni ah. nabi yaxya calayhi salaam hadalkiisa xigmad ayuu ahaa. wuxuu ku hadli jiray odayaasha xigmadda oo ku hadlayaan sidaasoo kale ayuu xigmaddaas ku hadli jiray. ilaah subxaanahu casa wajalla wuxuu dhahay wa aataynaahu alxukma sabiyan. asagoo yar wuxuu akhrin jiray towraadka. asagoo yar ayaa ilaahay baryi jiray. kadib maryam iyadana waxay dhashay nebi ciisa calayhi salaam. nebi ciisa calayhi salaam iyadana waxay dhashay aabbe la'aan. maxaa yeelay ilaahay ayaa sidaas u doortay. nebi yaxya calayhi salaam wuxuu ahaa nebiyada ugu dambeeyey oo reer bani israa'iil ah. nebi yaxya calayhi salaam wuxuu doortay nolol uusan nebi ka hor dooran. wuxuu doortay inuu ku noolaado guri la'aan. wuxuu ku noolaa buuraha. xataa wuxuu geli jiray buuraha godka oo ku yaala. wuxuu fadhiisan jiray geedaha hoostooda. nebi yaxya calayhi salaam hooy ma lahayn. alaab oo guri u taalo ma lahayn. cuntadiisa wuxuu ahaan jiray geedaha caleenteeda. biyihiisana wuxuu ahaa biyaha oo webiga. dharka oo gashanaayane wuxuu ahaa geelka suufkiisa. wuxuuna seexan jiray meesha habeenku meel walba kaga dhaco. nebi yaxya calayhi salaam naftiisa ayaa iskugu hadli jiray. waxaa isdhihi jiray yaxyow ma jira qof adiga kaa farxad badan. nebi yaxya calayhi salaam aad iyo aad ayuu ooyi jiray. waxaasna u ooyi jiray ilaahay cabsigiisa. ilinta indhihiisa ka soo baxaay waxaas jeexi jiray wejigiisa. kadib maalin maalmaha ka mid ah nebi zakariya calayhi salaam wuxuu raadiyey wiilkiisa nebi yaxya calayhi salaam. ugu dambayntii wuxuu helay wiilkiisa yaxya oo fadhiyo meel god ah. wuxuu dhahay wiilkaygiioo meel aniga aan kaa raadin malahane oo halkan maxaad u fadhisaa. kadib nebi yaxya aabbihiisa nebi zakariya wuxuu dhahay aabe markii la dhinto waxa ma jiro siraad oo la maraayo. siraadkaasne waxa lee ma maraayo qofka oo ilaahay dartiisa uu ooyo. markii hadalkan uu maqlay nebi zakariya calayhi salaam asagani waa la ooyey wiilkiisa yaxya calayhi salaam. nebi yaxya calayhi salaam da'diisa markuu u weynaaday kadib oo nebinimadiisa oo buuxsamay oo kaamil uu noqday wuxuu bilaabay dadka inuu oo ugu yeero tawxiidka إله سبحانه وتعالى. نبي يحيى عليه السلام واسي وضي توحيدك reer bani israa'iil tawxiidkii waa gaarsiiyey. kadib gobolka waxaa ku noolaa nin oo boqorkaan oo la dhihi jiray Herodos. wuxuu ahaa boqor oo dhaalim ah, boqor oo yacni zinada iyo wax walba oo xalaalaystay. kadib boqorka gurigiisa waxay joogtay gabar aad iyo aad u qurux badan. wuxuu rabay boqorkaas guriga gabadhaas oo ay joogto inuu guursado, laakiin wakhtigaas xeerka u aan lahaa wuxuu ahaa gabar oo adiga aad soo korisay oo gurigaaga ay joogto inaanan guursan karin. kadib gabadha hooyadeeda waxay yacni ay shakisay boqorkan inuu jecel yahay gabadheeda. kadib gabadha hooyadeeda boqorka waxay u dhahday gabadheeda iska guurso, aniga waan ku siiyey. laakiin boqorka wuxuu dhahay gabadhaada ma guursan kariye aniga yacni gurigeyga ku soo kortay. may ayay dhahday waad guursan kartaa bal ukaada ayuu dhahay. nebi yaxya ayaa la weydiiyey su'aasha. nebi yaxya waxaa loo dhahay gabadhan gurigeyga ayay ku soo kortayee ma guursan karaa boqorkii ayuu dhahay. nebi yaxya calayhi salaam wuxuu dhahay maya, gabadhan ma guursan kartid maadaama oo adiga aad soo korisay oo gurigaaga oo ay ku soo kortay. wakhtigaas xeerka uu aan lahay sidaas ayuu ahaa reer bani israa'iil. kadib gabadhii hooyadeeda way maqashay arrintii. kadib gabadhii hooyadeeda wuxuu dhahday i dhegaysa, caawa xaflad ayaa jira qasriga oo boqorka. si fiican isku labis, dharka ugu fiican gasho, ee agtiisa ku niiki, ku cayaar, khamrani ugu daldal.
kadib uu dhahay aniga ma ii guursanay gabadhii sidii ayay yeeshay khamrigii ayuu cabay boqorkii kadib wuxuu dhahay gabadhii boqorkii wuxuu dhahay boqorow aniga waa ku jeclahay ma ii guursanaysaa boqorkii wuxuu dhahay haddii raaliga uu yahayba aniga waa ku guursanaa yaxya hadalkiis iga dhaaf kadib gabadhii waxay dhahayd hay shardi ayaa jira shardigaas haddaad ii oofiso aniga waad ii guursanaysaa boqorkii wuxuu dhahay shardiga maxaa waaye gabadhii waxay dhahday waxaan u baahanahay yaxyaa qoortiisa ayaan u baahanahay kadib boqorkii ciidankiisa ayuu diray waxay aadeen guriga nabi yaxya calayhi salaam asagoo oo dukanaayo kadib qoorta ayay soo gooyeen qoortiisa waxay soo saareen saxan waddada intay oo soo socdaan qoorta ay soo wadaan waddadii dhan wuxuu noqday wada dhiig dhulka dhan dhiig ayuu noqday khasrigii ayaa loo keenay ninkii oo boqorka ahaa waxaa loo dhahay waa kanay qoortii oo yaxya waa soo gooynay boqorka qoort madaxa oo yaxya waxaa hadiyad ahaan ugu siiyey gabadhii oo guursan lahaa gabadhiini aad iyo aad ayay u faraxday laakiin gabadhii niyaddeeda ilaahay ma u yeelin kadib isla meeshaas oo xaflad jiro gabadhaas ayaa ilaahay dhulka ula gooyey meeshii oo xafladda lagu dhigaayey ayaa dhulkii lakhay meehii oo dhiigga oo soo maray dhiiggii oo yaxya oo soo maray nebi yaxyaa dhiiggiisa meeshii soo maray dhani waa wada baaba'ay dhulgariir ayaa halkaas ka imaaday markii oo zakariya calayhi salaam oo uu maqlay wiilkiisa yaxyaa in la dilay asagana wuu orday wuxuu galay duurka markii oo duurka oo galay ilaahay subxaanahu caza wajalla wuxuu yeelay ilaahay waxaas ku idmay inaas oo geed as dhexgalo waxaa loo dhahay zakariya geedkan dhexgal biqudratillaah geedkii waa kala dilaacay geed oo weyn baxaayas ahay meeshaas ayaas galay nabi zakariya calayhi salaam geedkii ilaahay waa isku keenay kadib dadkii way soo ordeen duurkii ayay imaadeen nabi zakariya asagoo raadinayaan shaydaan ayaa waswaasiyey waxaa shaydaankii wuxuu dhahay nebi zakariya halkaas ayaa ku jira geedkaas ayaa ku jira ma anfacaya geed oo isku xiran waaye geedkaasaas u galay ma geedkaasaa ku jira kadib qoomkii waxay yeeleen miishaar intay soo qaateen geedkii ayay gooyeen geedkii markii ay gooyeen nebi zakariya calayhi salaam asagoo kheelin rabo waa loo soo waxyooday waxaa loo dhahay aamus haddii adiga aad kheelisad dadkaaga dhan dhulka ayaa loola goohaa dhulgariir ayaa u imaahaa kadib nebi zakariya calayhi salaam waa aamusay waa adkaystay minshaartii markii geedka la gooyey oo lama lagala dhigay nebi zakariya calayhi salaam asagani laba ayaa lagala dhigay laba ayuu noqday wiilkii yaxya calayhi salaam qoortii ayaa laga gooyey aabbihii zakariya calayhi salaam asagani laba ayaa lagala dhigay labadii nebi oo ugu dambeeyeenay ahaayeen oo reer bani israa'iil shahiidkaas ayay ku dhinteen reer bani israa'iil ambiyadooda ma u naxariisan jirin way dili jireen ayagoo nool waa duugi jireen si xun ayay yeeli jireen walaalahayga khisadii oo nebi yaxya calayhi salaam halkaas ayaa nagu dhammaaday wuxuuna ahaa qaybtii ugu dambaysay qaybta labaad filimkaani waxaa idin soo habeeyey walaalkiina asrax abasaafi waxaana lagu soo habeeyey stuudio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadaba walaalahayga waxaan idinka codsanayaa inaad i gaarsiisaan 500,000 subscribe insha allah sidaas iyo nabadgelyo